tahay ama aynu ku tiirsan aynu runtii ku tiirsanahay jiritaanka aynu maanta jiraa waxay ku tiirsantahay deegaan fiican qaba wax qabadka hadaba wasaaradda haddaan wax yar idin sheego ama aan idinka taataabto horta wasaaradda markii ugu horeysay waxa laga bilaabay ilaa meel walba gunta laga aasaasay horta meeshu waa in xafiis u leeyahay gobolada horta waa in xafiis leeyahay gobol kastaaba maanta xafiis qalabaysan staafki joogan baabuurtii leh oo shaqeynaya oo mushaharka ka qaata dawladda Soomaaliland ayuu horta leeyahay sayla hadaad kaga soo bilowdo ilaa aad ka gaarayso sana way wada haystaan baabuurtii xafiisyadii qalabkii shaqaalii wax ka dhiman ma jiraan kuwa aan haysana degmooyinka ama gobolada soo koraya ay ka mid tahay imaka Saraaro ka guri ay ku jiraan $150 baan ka bixina waa villa isna caday oo shaqaalaheedii iyo wixeedii oo dhan ay diyaar u yihiin taan lahayna saasan ugu karaynay ilaa tuulooyinka ilaa degmooyinka ay karaysiin xafiisyada marka aynu ka hadlayno la dagaalanka xaalufka maxay wasaaradda deegaanku ka qabatay hadaynu isweydiino maxay ka qabatay wasaaradda deegaanka wasaaraddu waxay gobolada dalka ka samaysay 12 xarumood oo lagu beero lagu xanaaneeyo horta dalka 12 ay meelood ama nursery ayay kicisay 12 bal imagine marka 12 meelood aad adigu biyaheedii iyo dhirteedii ciideedii iyo digadeedii aad dhigayso bal wasaaraddaasi yaa keenay lacagta waa taxpayers money waa lacagtii ummadda Soomaaliland ee cashuur bixiyayaasha ee wasaaradda maaliyaddu ay nagu deeqday waxay sanadkii soo saartay wasaaraddu 400,000 ilaa 500,000 oo geed oo qaybisa hadaba waxay isweydiin leh waxa soo dharay qaybinayso riyaheena halkii bay joogaan oo caasimadii degmooyin iyo magaalooyinkii riyaheena halkii bay noo joogaan inta badani way noo hirgashaa 70% waa la beeraa laakiin 30% sidaan isleenahay magaalooyinka waliba waaweyn si wanaagsan uga hirgalin aan ahayn magaalada gudaheeda Berbera oo ka saartay iyagu xoolihii iyo magaalada Cergaabo oo labadaas ka saaray laakiin Berbera waxa ay dadka dheer tahay 10,000 geed ay u dambeeyaan siinay 10,000 oo geed ay qaateen wayna soo tuseenoo kaalay eega baydaan saan u beeray marka waxaan rajaynayaa in ay meeyarada kale meeyarkii halkan waa kan aad uga hadlay inaan insha Allah bidmillaahi kariim waynu soo qaadan doonaa inaynu anaguna u qaybno iyaguna ay ka faa'iideeyaan ummadda sidoo kale wasaaraddu waxa ay qaaday talaabooyin ay ku xirayso seerayaashii dhulka runtii seerayaal badan baynu leenahay 45 seere ayaynu leenahay dhowr iyo 70 bay ahaayeen wax badan oo ama yaryaranba waaweyn laakiin inta imka aan soo taabanay ka wasaaradahan waa 45 seere 13 kamidana waxaan u sameeynay maabkoodii iyo sidii looga shaqeyn lahaa insha Allah mustaqbalka soo socda afar seere marka imika afar seere waa iyagu waa joogto oo waa la xiraa waa la furaa waa la xiraa waa la furaa marka kuwaasi si weyn ayay u shaqeeyaan kii ugu dambeeyay imika waxa weeyaan seeraha xudun oo iyagana ayaanti dhaweyto runtii sawirada waa la idin tusi doonaa insha Allah waqti dhow laakiin way idin arki doontaan isbedelka ku yimi seerahaasi waxa kale ee ay wasaaraddu aad isaga xil saartay sidii u ilaalin lahayd kaymaha caanka inoo kaymo seereeyo waxa la kaymo seereeyaa in yagna waa caan waxaanu ka soo qaadaynaayoo kale daalo gacan libaax wagar libaaxley iyo geedeeble ayagana xoogaa la saaray oo si fiican baa loo beero loo ilaaliya si loo yareeyo isticmaalka dhuxusha bal si aynu u yareyno isticmaalka dhuxusha inaga gudaheena horta ta inaga dhoofaysa horta iska daayo bal ta gudaheena oo kaliya waxay wasaaraddu kabis u samaysay 5% kabis dawaad ku kabaysa qofkii qaadaad leedahay 65 naana bixinayo adiguna inta kale iska bixi 35 kale iska bixi gaasta loo yaqaano LPG-da ama haamaha gaasta iyadoo oo sidoo kale loo sameeyay 100% cashuur dhaaf cashuur lagama qaado marka ay soo dejinayaan dhammaan shirkadaha soo dhani isay u wada dhan yihiin 2016 intii ka horeysay haantu waxay ahayd
markay ugu jaban tahay haantu waxay ahayd 30 maantana 17 ilaa 18 ayaa runtii laga siiya waliba ay aad u qaadataa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya shantii sano imka ugu dambeeyay waxaanu soo dejinay 24,460 metrik tan oo gaas taasa oo hadda cashuur dhaaf loo sameeyay oo dawladdu u sameysay sanadkii imka ugu dambeeyayna waxa la soo dejiyay 9,000 iyo 150 ayaa sanadkii 2020 oo kaliya loo soo degay while haddaad u eegto 2016 800 hadii waa 800 metrik tan baa soo degay 800 kaliya 16 imika sanadkiina dhaafayna 9,150 metrik tan baa soo degay oo dawladdu cashuur dhaaf ku sameysay halka haddaynu ka sii gudubno waxa aad markaa aad badbaadisay hadda kuma jiraan girgirayaasha beekhaaminaya buxusha kuma jiraan dadka loo tababaray girgirayaasha ama girgirayaasha laga keenayo waxa laaliyo waxa soo dhan waa free of tax ma laha cashuur waxaan anagu inta islaana waa badbaadiseen 2,464,000 kun oo geed ayaa badbaadisan intaasoo kun oo geed baa lagu badbaadiyay waa inta waa dhowrkaa sanadood haddaynu ka hadalno in yar horumarinta reer miyiga wasaaraddu maxay ka qabatay horumarinta reer miyiga way ku magacaaban tahay maxay ka qabatay wasaaraddu waxay ka qabatay oo samaysay mashaariic wax ku oolo oo biyo xidheena ayay samaysay mashaariic istaba socota oo biyo xidheena ayay samaysay si looga faa'iideeyo xoolaha iyo si looga faa'iideeyo xoolalayda iyo beeralayda iyo dadka kale afka u cabayaaba wasaaraddu waxay samaysay meelo fara badan oo biyo qabatina laakiin afarta ugu waaweyn ee wasaaraddu hogaaminaysay mashruuc weyn oo ku dhacay buu ahaa gobolka Maroodijeex oo loo sameeyay sandams waxa la yiraahdo oo dhulka hoostooda biyo loogu xidhayo dooxyadii kaasoo si weyn ay uga faa'iideysteen dad fara badan oo xoolo dhaqataa beeralaya iyo dadkii afka uga cabay taana wasaaradda hormood bay ka ahayd wasaaradda kalena way la shaqeynayeen wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda biyuhu intaaba way nagala shaqeynayeen haddaba shuruucdii waxaan oo dhan lagu maamulayay ma laha yaa mise lama hayo ma la soo saaray shuruucdii mise lama soo saaray waxay wasaaraddu runtii soo saartay shuruuc wax ku oola ayay soo saartay shuruucdaasi muxuu yahay heerka ilaalinta deegaanka xeerka ilaalinta deegaanka xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta xeerka maaraynta qashinka xeerka siyaasadda guud ee ilaalinta deegaanka oo dhan iyo siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada oo imika runtii gacanta lagu hayo wasaaraddu iyadoo dadaalka yihiin wixii wasakhowa dalalka adduunka horumaray baa ugu badan ee hawada lagu sii daynayo ee warshadaha ee nuclear-ka kuwa horumaray baa ugu badan wasakhowa inagu see maxaynu nahay waxaynu nahay dawlad yar oo iyadu 100% ku tiirsan khayraadka dabiiciga 100% warshada ma lihin waa ogtiina inaan warshadaheenu yar yihiin waa ogtihiin oo number 2 waxa weeyaan beeraheena beeruhu 15% bay ka yihiin wax soo saar laakiin maxaa lagu tiirsan yahay waa xoolaha nool haddii xoolihii noolaa ay waayaan meel ay daaqaan haddii geedkii ay daaqi lahaayeen la goynayo haddii dabagoyn xaaluf ay ka socoto intaba waxaan idiin sheegayaa in haddii aan la yidhaahdo innaga ay aafay nugu tahay waxa maalmahan dambe aan la socod maaragtay ka hadlayno wasaarad ahaan aan la hadlayno oo xidhiidh noo dhexeeyay dalka Itoobiya xidhiidh noo dhexeeyay dalka Itoobiya waxay ku tala galeen 1 bilyan maaha milyan 1 bilyan oo geed inay geeska Afrika u beeraan 1 bilyan iyaguna ay beertaan 6 bilyan oo geed iyagu 6 bilyan bay ku tala galeen laakiin geeska Afrika maxay u beerayaan 1 bilyan bay u beerayaan marka laga bilaabo Somaliland Djibouti Eritrea Sudan South Sudan Rwanda aad soo socoteen Tanzania Kenya Soomaaliya Somaliland ku dambayso 1 bilyan bay u qaybiyeen inaga waxay nagu soo beegmay 8 milyan
8 milyan oo geed bay nagu soo beegmay bisha soo socota 22 diyaaradii ugu horeysay ee dhirta u siday Soomaaliland ayaa garoonka Hargeysa soo fadhiisanaysa waa sidaan nimka isleenahay ee aan tiintaybulka ku hayno bal waxa ka warantaa dawladii noo beeraysa dhir oo diyaaradii noo soo saaraysa oo boyn weyn soo saaraysa boyn laba dhigaysa soo saaraysa oo kharashkii iyadu qabta maxay doonaysaa inooga baahan tahay geeska maxay uga baahan tahay geeska Afrika maxay uga baahan tahay geeska waxay uga baahan tahay waynu isku xidhannahay cimiladeenu way isku xidhannahay mar haddaynu cimiladeenu isku xidhannahay oo markay iyaga abaarobaan xoolaha halkan imanayaan marka kalena inagu u tegayno waxay inoo beereen doona inoo beereen oo inoo diyaara 8 milyan oo geed milyankii ugu horeeyay wuxuu soo fadhiisanayaa diyaaradii ay laba dhigi doontaa 22 bisha dambe wafdiduna iman doontaa wafdi balaaran si loo beero iyo si la yiraahdo si loo eego waxaan halkan idinku sheegaya markay dhirtaasi timaado bisha dambe waxa weeyaan meerada iyo barasaabada gobol kastaaba waa loogu geynaya halkooda loogu geynaya meeyar kasta waa loo rarayaa burca la keenaya meeyarka iyo barasaabka iyo gudidu waxa weeyaan inay dhirtaa beeraan ama xoolo ka saara ama idin dhex fadhiyaan laakiin dhirtaasi waa la idin keenaya ilaa sanaad baa la geynaya waxaana la eegayaa bal siday u baxdo 150,000 oo geed baa ku qoran iminka sanaad barasaabkii sanaad mid 150,000 oo geed bay ku qoran oo 150 ka la doonayo in la arko in la beero halka haddaan hore uga sii socdo barnaamijka koow ee aanimka dawladaha hoose la wadnaa waxa la yiraahdaa urban environment ama bal environment deegaanka sidee magaalooyinka waaweynaayo ku yaryaraaba sidee urban environment looga shaqeynayo war sidee baynu uga shaqeynaynaa magaalooyinkeena marka imika wada tashi fara badan ayaan imika dirtaba la yeelanay meeyarkii cusbaaye beeyaradii iyo dad iyo maaragtay xildhibaanadii u soo baxay deegaanka ee magaalada Hargeysa waxaana ku nahay ilaa 8-9 wasaaradood oo sidan oo kala wax iska soo galeen oo mid walba shaqo ku leedahay bal sida iyadana loo joojin lahaa korna loogu qaadi lahaa horta bal deegaanka nadaafadooda labaadna bacda loo joojin lahaa oo 2015 bishii afraad 15keedii la mamnuucay oo haddana dalka ka dhex socota sidee loo joojinay teen u joojinayna bacdan maalin walba ko tarbaan bay ku timaada gaari malaasan baa yimaada haddana dadkii warshadaha lahaa ee warshadaha markii hore la Soomaaliland dariska waynu ka xidhno waynu ka xidhno marka hadii alla yiraahdo taasina waa ka gungaarayna waxa hadii alla yiraahdo aan ku soo gabagabeynaya oo maaragtay aan taydan khudbadaydan ku soo gabagabeynaya waa midka maanta halkaan inoo taala waxa hore agaasimaha guud baa aad uga hadlay waana laga hadlay waa wada tashi warsaynu wuxuu wada qabsanaa waliba shanta region ee gobol xaggan iska xiga maaragtay bariga bal sideen u wada shaqooyintooda kor ugu soo qaadaan iyagoo u wada shaqeynaya at the regional level iyo as a national level iyagoo goboladii u shaqeynaya nationalkiina ka shaqeynaya haddii gobol wax ka dhacaan gobolka kale inaan u sii dayno qabto ka kale haddii dhuxusha halkaa ka baxaysa ay masaraar laga shido oo ay sool sii dayso dee xoomaynu qaban markaa haddii dhuxushii ka baxaysay sanaad ay xagga shaqada marto xisha ka baxdo dee waxba maynu qaban markaan kii maxkamadda la keenayna haddaan sharcigiisii la marin oo mar walba la yiraahdo khasiraad waa caadayste ma aha taasna waxa weeyaan waa mid inoo taalo haddaba mid baan kelmad baan idin oranaya waxa maanta inoo yaala do something ama do not do anything war ama wax qabo ama waxba ha qaban bal maanta waa labadaas inoo yaal mid baynu dooranayna ama aynu wax qabanno ama aynu waxba qaban anigu se waxaan barafeer garaynaya oo aan leeyahay inta naftu igu jirto neeftu sankayga ka baxayso do something baan weeyaa tayd wasaaraddeeduna wax weyn do something wax qabta wax la qabto hal bedelo waxaan halkan idinku qiraya maanta qofka konton jir iyo wixii ka weyn midina maanta aafadaa taagani wax badan yeeli mayso
qofka hadduu maanta 50 60 70 80 soddonka sanadooda soo socda ma dareemayo laakiin waxa waxyeelaysa khasaaruhu ku dhacaya 15 jirka maanta ilaa dhowr iyo 30 jirka ba khasaaraha ugu weyn la kulmaayo ku dhacayso madaxa ay kaga dhacayso sidaynu haddaba dadka uga dhowraa u badbaadina innagay maanta inoo taalo miiska inoo saaranta had ka raali ahaanaysa marka deegaanka la soo hada qaado waxa kaca axsaabtayda kacda marka horta taa raali ka ahaado waxaana markii ugu horeysay ee inta soo taliyo oo wada xidiga leh oo wada sida way ugu wada taxayeen aanu soo hor fadhiisanay waa maalintii ugu horeysay barasaabada waa misarabna inta badan meeyarada laakiin inta soo taliyo oo maanta iyaguna waqtigoodii qaaliga ahaa u soo huray inay ka qayb galaan shirka oo iyaguna ka qayb qaataan oo waliba booliiska inta badan waan wada shaqeynaa waa militariga oo iyaguna inoo jooga dhul fara badan iyo ilaalada xeebaha oo iyaguna la'aantooda aanay wasaaraddu wax badan ba qaban karaan marka ay timaado xagga xayawaanka la dhoofinayo oo aan wax badan ba qaban karaan hadaan ilaalada xeebuhu nala shaqeynay maanta aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayna aadna waan idinku mahadnaqaynaa waqtigiina qaaligaa dhammaantiin la siiseen salaamu calaykum waraxmatullaahi